Asxaabta aad iyo aad baan idin salaamayaa. Asxaabta qaar ayaa waxay isoo weydiinayaan qaabka sida Zoom-ka loo soo degsado ama loo soo galo haddii soo degsadaan. Dabcan waxaan ka bilaabayaa qaabka loo soo degsado Zoom-ka. Waxaad tegaysaa Play Store-kaada ayaad tegaysaa. Play Store-kaada markaad tegtid, qaybta searching-ka ayaad waxaad ku qoraysaa ereygan Zoom ayaad ku qoraysaa. Z-O-O-M ayaad qoraysaa. Waxaa kuu soo baxay Zoom ayaa kuu soo baxay. Zoom-ka kelig ayaad dhehaysaa. Aniga hadda waan soo degsaday, wuu igu jiraa taleefankayga. Taleefankayga hadda wuu igu jiraa open ayuu leeyahay. Adiga marka waxaad leedahay install ayaad leedahay. Sida application-nada caadiga ah aad uga soo degsid Play Store-kaada ayaad u soo degsanaysaa. Kadib waxaad tegaysaa qaybta ugu hooseyso application-nadaada taleefanka ayuu ku galayaa. Okay, qaybta ugu hooseydo taleefankaada ayuu taleefanka waxaan ugu duubayaa cashirka waxay tahay si mataqaanaa taleefankaada aad ugu soo degsatid. Halkaas ayay mataqaanaa Zoom ay ku qoran tahay hoose application-nadaada meesha ugu hooseyda ayuu ku galayaa. Uu yahay Android marka halkaas ayaad mataqaanaa haddii iPhone ay tahay waa isla mid. qaybta sidka application-nada aad ka raadinaysaa. Okay, sidaa marka ugu soo biiri lahayd waxaa weeyaan link yaa lagu soo dirayaa, lambar la socdo ID ayaad waxaad gelinaysaa meeshan ay ku qoran tahay. Waxaad taabanaysaa markaan join meeting ayaad taabanaysaa. Join meeting markaad taabatid meeting ID ayuu ku weydiinayaa. Meeting ID ayaad qoranaysaa. Okay, meeting ID markaad qoratid waxaad leedahay join meeting ayaad leedahay. toos meeting-ka iyo gudbi ayaad leedahay. Markaas waxaad tegaysaa live meeting-ka macalinka cashirka markaas uu diyaarinaya aad tegaysaa. Aad u gudbaysaa. Marka waa intaa oo keliya. Habeen wanaagsan.